sawirrada, sanduuqyada qoraalka, iyo qaababka ayaa dhammaantood lagu tiriyaa shay ku jira Word. Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay caawimo yar si aad u habayso walxahan si aad u hesho dukumentigaagu u ekaado sida aad rabto. Qaado tusaale ahaan 40 sanduuq oo qoraal ah. Hadda, kulligood si aan kala sooc lahayn ayaa bogga loogu dhejiyaa, laakiin waxaan ka jeclaan lahaa inay saf ugu jiraan. Dabcan, waxaan isku dayi karaa inaan gacantayda saf ugu galo ama waxaan heli karaa Word inuu ii sameeyo. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan doonto inaad samayso waa inaad doorataa walxaha aad rabto inaad toosiso. Si aad hal mar u wada doorato, keliya ku qabo Shift keyboard-kaga inta aad gujinayso. Marka xigta waxaan u socon karnaa tab format oo guji amarka toosan. Waxaad heli doontaa dhowr ikhtiyaar oo kala duwan oo aad ka dooran karto oo u dhexeeya toosan ilaa toosan. Waxa kale oo aad dooran kartaa in la waafajiyo walxaha bogga, margin, ama midba midka kale, taas oo ah goobta caadiga ah. Markan waxaan raacayaa istoosi rigged oo hadda walxuhu waa isku toosan yihiin dhinaca midigta. Waxaa jira shay kale oo aan jeclaan lahaa in aan beddelo oo si fudud loo samayn karo. U fiirso sida qaababka loo safeeyey, laakiin si siman uma kala foga. Si taas loo hagaajiyo, aad mar labaad amarka toosi ka bacdi dooro si toos ah u qaybi. Wanaagsan. Hadda oo walxahan loo habeeyey sida aan rabo, waxaan u socdaa inaan kooxeeyo si ay had iyo jeer u wada joogaan. Kaliya iska hubi in mid kasta oo ka mid ah walxahaaga la doortay, dabadeed dhagsii amarka kooxda oo dooro koox. Hadda waxaan haynaa shay keliya oo kooxaysan oo aan u dhaqaaqi karno ama u cabbiri karno sida aan rabno. Eeg sida ay u shaqayso. Aynu eegno dhowr farsamo oo kale. Sida aad arki karto, waxaan horay ugu daray sawirka aan rabo in aan isticmaalo qayb ka mid ah asalkayga. Waxa kale oo aan u beddelay habqorista qoraalka oo aan u beddelay xagga hore ee qoraalka si aan u fududeeyo in sawirka bogga lagu wareejiyo. Dhibaatadu waxay tahay in ay isku dhejiso inta kale ee walxaha ku jira dukumenti ilaa heer aan xitaa arki karin iyaga. Tani waxay dhici kartaa wakhti kasta oo aad haysato walxo badan, taas oo ku xidhan waxa ay ku jiraan. Si aad u beddesho nidaamka shay, hubi in la doortay, kadibna tag Format tab. Waxaad haysataa 2 amar oo aad kala doorato, horay u keen ama dib u dir, iyadoo ku xidhan waxaad u baahan tahay. Haddii aan gujiyo dib u diri, sawirku wuxuu dib u soo celinayaa hal heer oo kaliya asal ahaan ka dambeeya magaca ganacsiga. Sanaadiiqda qoraalka ah ee dhanka midig ku yaal ayaa weli qarsooma. Haddii aan taabno falaarta hoos u dhaca beddelkeeda, waxaan dooran karnaa dib u celinta, taas ayaana daryeelaysa. Waxa ugu dambeeya ee aan jeclaan lahaa in aan sameeyo waa beddel ama rog sawirka si ay u muuqato mid kale. Si tan loo sameeyo, dhagsii amarka rotate ka bacdi dooro Flip Horizontal. Hadda waxaan arki karnaa goobooyin ku qarsoonaa sanduuqyada qoraalka ee midigta. Halkaa marka ay marayso, wax walba si fiican ayaa loo siman yahay, waxaana loo habeeyey hab sax ah. Markaa waan ku faraxsanahay dukumentigayga. Ku tababarto isticmaalka qalabkan keliga oo waxaad awoodi doontaa inaad ku shaqayso walxo xaalad kasta oo kala duwan.